السلام عليكم أخيارتا ما أنتو waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad muhiim ah mowduucaas oo ku saabsan xirfadaha fagaara ka hadalka waxaa jira 7 xirfadood oo fagaara ka hadalka ay muhiim u yahay inuu qofku yaqaano lambarka koowaad qofka koowaad oo looga baahan yahay inuu yaqaano fagaara ka hadalka oo wariyaha ama qofka reporterka haddii aad wariye tahay oo aadan aqoonin fagaara ka hadalka macquul maaha wariynimadaadana sax ma noqonayso marka fagaara ka hadalka kaliya maaha dadka dhiirigeliyaasha kaliya inay yaqaanaan dad badan oo waxaa jira fagaara ka hadalka ay muhiim u yahay inay yaqaanaan lambarka labaad waa looyarka ama qareenka qofka looyarka oo u doodaya qofka mataqaanaa dhibanaha ama qofka dambiilaha labadaba qofkaas waa khasab inuu yaqaano fagaara ka hadalka iyo sida mataqaanaa hadalka fiican loo sheegi karo lambarka saddexaad waa macalinka fagaara ka hadalka aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay sababtoo ah dad badan ayuu hor istaagayaa marka waa inuu xogtii si fiican u gudbin karo oo uu si fiican wax uga dhaadhicin karo arday badan lambarka afraad waa qofka marti soo dhaweeyaha luqadda Ingiriiskana lagu dhaho host qofkaas waa khasab inuu yaqaano fagaara ka hadalka oo uu martida madadaaliyaa intuusan bilaaban ka hor xalfadda ama haddii ay lacala xalfaddu xoogay ay habsan noqoto lambarka shanaad waa qofka afhayeenka waxaa la yidhaahdaa qofka loo magacaabo inuu u hadlo qof maqan marka qofka afhayeenka oo aad ay muhiim ugu tahay inuu yaqaano fagaara ka hadalka lambarka lixaad waa qofka dhiirigeliyaha waa qofka koowaad ee ugu muhiimsan ay badanaana Soomaalidu u taqaano inuu kaligiis u baahan yahay inuu yaqaano ama loogu talagalay fagaara ka hadalka ee maahane fagaara ka hadalku waa xirfad aad iyo aad u ballaaran lambarka toddobaad waa qofka loo yaqaano hadalyaqaanka Englishka waxa lagu yiraahdaa speech writer hadalyaqaanku wuxuu qoraa hadal uu qofka la soo jeedinayo ayuu qoraa marka sidaa darteed ayaa waxa loo yiraahday hadalyaqaan qofka hadalyaqaanka aad ayuu mataqaanaa u yaqaanaa public speaking-ka ama fagaara ka hadalka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan hanaga ilaawin inaad subscribe noo saarto mahadsanid